kuwa labo marka uu horeeyay amni weey amnigu waxaan u maleynayaa galgala inay tahay meesha ugu amni badan way dhacayaan laakiin markii la fiirsho ciidanka iyo xaddiga ay ku joogaan iyo raggaas intay fadhiyaan waan soo mareynay maanta dhan waxaan u maleynayaa muhiimad gaar ah bay Puntland u leedahay intay Puntland ka kooban tahay ciidan wadadan ay joogaan iyo galgala area meeshaan anigu maanta ka hor ma iman geeda kan harqaboobe haddaan maanta u bixiyo waxaan u maleynayaa inuu magac noqon doono laakiin waxaan leeyahay isma lahayn cambe intaan leeg baa ku yaala Puntland markii koonfur laga reebo marka muhiimad gaar ah waxaan u maleynayaa beertii jannada ay noqonaysaa meeshaan amniga markii laga yimaado waxa la rabaa jid la maro oo qofka bini'aadanka iyo deeq bixiyaha iyo ganacsadaha iyo wuxuu u baahan yahay jid uu soo maro oo meeshaas ku hormariyo haddii la og yahay barwaaqada tan ku taala oo ganacsato badan og tahay ama inay nabad tahay og yihiin ganacsatadu kuwa badan baa dabaya ka dhisan lahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada kulligood waxa ka go'an in gobolada dhammaan waliba dhulka resource kale in loo soo jeediyo hay'adaha dawladda lacag ku bixiso waxaan u maleynayaa amarkii ugu dambeeyay nala faray waxaan marinaya anoo qaybta ugu horeeyo gobolkan oo yimaada galgala inaan ahaan u maleynayaa waxaan marinayaa ninkii qandaraaska la siiyay oo waqti badan aan ka wixii looga baahnaa aan ka qaban waxaan amar ku qabnaa talaabada ku habboon aan ka qaadno hadduusan dadkana shaqaynayana waxoodii siin shaqadii loo igmadana sidii gudoomiyuu sheegay wasiirka inta dama sheegi doona laga jawaabayo inaan ummadda ka qabano annaga fariin baan geyn doonaa dawladdana xoogan ku saari doonaa madaxweynahan way ismaqli doonaa wasiirkuna isagaaba hadda golaha wasiirada tagi doono waa ila tayraan u sheegideen sabab waa indhiis ku arkayo waxa ugu muhiimsan xuquuqda ciidankan inuu helo midda noogu muhiimsan waxay tahay xaq waxay dawladda u kaleeyeen inay ka helaan wasiirka maaliyadda waxaan ugu baaqayaa dawladdu agabkeeda kale madaxweynaha iyo wasiirka amniga iyo iyaga laga rabaa laakiin wasiirka maaliyadda waxaan leeyahay indha aadan ku fiirin meelaha kale ina ciidanka buuraha saaran ku fiirsan karno oo si dhow weegto sababtoo ah Puntland wadnaheedu waa ninkii cadawga ka difaaca weey ninkii cadawga ka difaaca weey cadawga wuxuu halakan gabaad ugu soo dhiiranayaa maalin walba meelahan waxaan meelanahay u wareegayaa waajidiye jahdiid laakiin geesiyaal baa fadhiya waxaan leeyahay saraakiil xigeen dabley iyo xaasaskoodu waa salaaman yihiin aad iyo aad baa u mahadsantiin meeshina ka sii wada waxaan rajaynayaa inaan mara badan inay soo noqdo oo arko waliba meelaha ciidamadu joogaan marka aad baan ininkan idinku mahad celinayaa 100% shaqo adag baa haysaan ha laga dhiirado waddankeena weeye waxaan rabno inaan gaarsiino yool waxaan u maleynayaa SYL iyo waa la wada garanayaa haddee waxay soo mareen waqti aan ciidaba shirin cidna wada hadlin maanta geedkan ma harsaneen haddayan fikirin waxaa Soomaalidu tiraahdaa ninkii madax madow baa maskax ku dameyso haddee ragga meesha fadhi inta badan dhalinyaro u badan ciidanka waxaan leeyahay aan dhabaradayno waa ogahay nin badan inuusan gurigiisii iyo caruurtiisii tagin in badan laakiin guul badan baa inay rajaynayaa dawladdana haddee annana warka waa gaarsiinaynaa haddana waan ismaqlaynaa waxaan rabaa waddankeena innagaa leh cadow jidiya jahdiidana waxayna tarimayo haddaynaan ummadda ka qaban gabdhaheenna iyo dhinacay ka taagan yihiinna waxaan leeyahay gabdhuhu kuwa khayr weeye iyaguna shaqo badan bay hayaan waan ognahay si dalkay dadka ugu shaqeeyaan ciidamada u dhiirigeliyaanna aad baan iyagana ugu mahad celinayaa gaar ahaan gabdhaha deegaankan markaan sii fiiriyo hadda magaalada in badan aanu ma dhex marin laakiin markaan geeska ka istaagay guryo badan baa ii muuqday laakiin dadkii deganaa waa dadkii ceeldaahir lagu sheegay waxaan rajaynayaa hadday waddadu dhammaato inay dad badan soo noqon doonaan inkastoo aan jeclaa guddoomiyihii degmada inuu markii hore warbixinna siiyo kolley marka u dambaysa in la siiyo waa u baahanahay
si uu deegaanka si fiican uga warbixiyo dadka degan iyo aad baan ugu wada mahadnay waa mahadsantihi